موشنك للديارنايو اللي حسن شيخ إيو حمزة موشن لغا كينا وحالوما مرسيونايو واسيدي حمزة موشن لغا كيني لها لطوري لها بارلمانكا إيو مدحوينها لما ويسلا اوغيهين أرنكان وحو سلقا كوهايا حمزة لبا كيس وكهالي لبدا كيس وكهالينا واللبا كيس او آد مهم اوغو شعب كسومالي إيو دالكا wuxuu sheegay Hamza wuxuu cadeeyay oo sheegay in Oromadii iyo Ethiopiankii ay awood kula wareegeen dhulkii la dhihi jiray Soomaali galbeed ama ogaadeen marba gobol marba tuulo say u qabsanayeen wuxuu sheegay in ay ku soo fideen gudaha Soomaaliya oo Puntland iyo Somaliland si xoogan ay u qabsadeen completely koonfur galbeedna ay la wareegeen beerihii maantay ayagii falanayaan beerihii Ethiopiankii falanayo buurihii dhagaxdii dahabkii diamondkii macdantii uraniumkii dhagaxdii laga sameeyay nugneerka waa kan Ethiopianka ay dhaheen 6 sano kadib nugneera soo saareena midda uu sheegay waa midaas waxa uu qarxiyay in Ethiopia ay dalka la wareegayso wax walba uu ka hadlayna maanta waan wada aragnaa xaqiiqdeeda afkoodana waxay ku cadeysteen badda Soomaaliya 200 sano inay ayaga lahaan jireen xoog loogaga haysto kiis waa kaas kiiska labaad waa kiiska markuu yiri Xamaas argagixisa maahan way isdifaacayaan dalkoodana difaacayaan Xamaas argagixisa maahan يوروب iyo Mareykan hadda taageertid Xamaas argagixisa lagu yaqaana xabsiyaana galaysa si degdega ayaa madaxweyne Xasan Sheekh loogu wacay wuxuu yimid magaalada Imaaraat Dubai Imaaraat u tagay waxaana lagu yiri waa ina xilka ka qaadaa isla markaas qadar u tagay Al Jazeera laga wareystay raali gelin uu bixiyay wuxuuna sheegay in uu taageersan yahay Israa'iil arrinkaasna uu dhexdhexaad ka yahay رئيس وزراء سومالينا إنه قلدمي waxaa dhacday Xasan Sheekh markuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho in رئيس وزراء la waday laga dajiyay Ethiopia amar la siiyay laga sii waday kadib Imaaraat uu tagay Imaaraat kulamo uu ku galay kadib Turki uu maalmo joogay maalmaha Turki jooga wuu yaraa laakiin رئيس وزراء 2 asbuuc la weysanaa Ethiopia iyo waxa la geeyay Imaaraadka ilaa iyo maanta ra'iisul wasaaraha ma hadlin kamana hadlin Falastiin dambe kama hadlin Ethiopia iyo damaceeda ilaa iyo maanta uu aamusan yahay ra'iisul wasaaraha waxa noogu soo xigo in la dhaho mooshin ha laga keeno xilka Soomaaliya iyo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud isaga iyo inta taageersano Yesman iyo familkiisa kaliya ayaa sidii rabaan ugu ciyaarayo taasina waxay fududeynaysaa waxaan waa ab iyo isr iyo farac iyo dhaqan soo jireen shalayna waxay u adeegi jireen Talyaani maantayna waxay u adeegayaan Ethiopian iyo cadow shisheeye dalka hal badbaadiyo Soomaaliyeed hal badbaadiyo dalka